السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ardada ku xiran kanaalka Sayda Computer Technology waxaan maanta ugu talagalnay sidee sawirkeena meel qurxan aan u geyn karnaa ama sidee qoraal fiican ama qoraalkeena ama taxiga markaas aniga aan diyaarinayno sidee meel qurxoon aan u geyn karnaa marka qoraalkii maca sawirkeena. marka hadda waxaan baran doonaa labadooda qayb ayaan baran doonaa by online ahaan ayaad ku isticmaali kartaa. wax set up ah aad u baahan tahay ma lahan. kulay marka hore programka aad ku shaqeynaysid ayaa ku furnaysaa. aniga waxaan ku shaqeynayaa Mozilla Firefox aan click siinayaa aan furanayaa kadib halkan waxaan ku qornaa waxa la yiraahdo Photofania. aniga uu qoran yahay waa isticmaalay Photofania. markaan qoro waxaan leeyahay enter ayaan leeyahay. marka enter markaan dhaho waxa ii soo baxayo intaan qaybood ay ii soo baxayo oo sawira iyo qoraal ah. haddii aad u baahan tahay in sawirkaaga meel qurxoon aad geysid waa geyn kartaa. haddii aad u baahan tahay in qoraal fiican aad meel ku qortid waa idin sidoo kale. maanta waxaan rabaa marka waxaan ku hormarayaa qoraalka ayaan ku hormarayaa marka for example hadda qoraal ayaan qorayaa. qoraalkan hadda waxaan rabaa qoraalkan inaan ama Jameskan inaan magac ku qoro ama haddii rabo qoraal kale ayaan sii raadinayaa oo aad u qurxoon. for example kan kala click siinayaa. markaan click siiyo waxaan rabaa marka qoraalkan oo qoran inaan bedelo oo magaca u yeelo marka. okay meeshan ayaan click siinayaa oo tirtirayaa. waxaan ku qorayaa Sayda Computer. Sayda Computer. okay Sayda Computer. okay waxaan ku qorayaa intana technology. okay kadib maxaan leeyahay go ilaa halka waxaa soo baxayo la fiiriya good. hadda maxaan bedelnay magacii ayaan bedelnay. waxaan ku qornay Sayda Computer Technology oo u jeedana Soomaan. marka waxaan marka maadaama magacaan aan inta aan ku qoray waxaan u jeedan waa sanfilay waa daango. daangada ayaa korkeeda magaca computer schoolka ama Sayda Computer ku qortay. kadib waxaa leedahay marka save save marka korkiisa ayaa maalinaysa. waxaa leedahay right click and then waxaa leedahay save image as and then magaca waxaa ku qoraysaa for example Dango. يعني si aad sawirka aad u soo xasuusto Dango desktop ayaa click siinayaa and then save Dango. marka kan waa soo dejinayaa kadib Dango raadinaa waa kana markaan furo waa kana waxa soo baxayo aan qornay marka Sayda. okay kaas waa qoraalka waa. haddana waxaan baranaynaa sida sawirka loo saaro marka. okay back ayaan leenahay. markaan back dhana waxaan rabnaa in sawirkeena aan dul saarno meel qurxoon oo aad u fiican. waa raadinaynaa okay for example intoo kala click siinaa marka kan waxaan rabaa in gabadha magaca aan bedelo oo sawir aan saarto. okay marka labo picture waa. hadaa rabti in sawirkan laba xaba aad saarto ama adiga iyo qof kale aad saarto aniga marka labadoodan saarana marka inta ayaa click siinayaa upload from PC. meeshaan waxa waa sawirada waxay ku computerka kugu jiraan. kaligaa siinaysaa desktop ayaa tagaysaa sawir ayaa raadinaysaa. sawirka aniga wuxuu desktopka ugu saaran yahay sawir kan click siinayaa. okay wuu shaqeynaa. markuu shaqeeyo okay crop ayaan leeyahay marka kan kale aan galaa marka dana kaligaan siinaasina sidoo kale ayaan upload aan leeyahay. waxaan dooranaa sawir kale kan aan dooranaa open. okay markuu shaqeeyo waxaan leeyahay okay crop. okay markaad labada sawir aan soo gelinay waxaan rabaa marka in labadan sawir oo meeshaan oo noo koro. marka waxaan leenahay marka go ila fiiriya sawirkaaga meel qurxoon aad u fiican ayuu soo korayaa. waa kaas waa u jidna Soomaa. hadda marka mid kaarta dooranaysaa ayaad dooranaysaa. waa fahmi Soomaan. marka intaas ayaan ku sameeynaa casharka insha Allah. waxaan rajaynaynaa in maalmaha kale casharo aad iyo aad u qiimo badan inaan soo wada gelino dhanka multimedia programka insha Allah. intaas ayaan uga tegaynaa. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.